السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة دوادة جمال كينا كم انت قرات كعروت ولا شرح محسين ما انتو حانو هاي قصة اد ومروقة بدن انا عرور بدن دباتة بدن عرور هاي ستا قصة صحاوية waxay ku dhacday laba cunug laba meel kala joogo oo isku dhaweyn labadaas cunug waxa ku dhacday laba cunug waxay ahaayeen caruur ma sha Allah aad u wanaagsan diinta ku fiican oo ma sha Allah oo xilligii teenager ahaa ayay ahaayeen oo diintan ku wanaagsan labadii cunug labadii waalid waxay kala arkeen hal mar oo caruurta isbedeshay labada waalid mas garanayaan laakiin qisada ana laba mar ay kasoo kala gaartaan ay idin sheegaan laakiin waxyaabaha iskiga mid ahaayeen ayaa idin sheegaya labadaas cunug waxay iskiga mid ahaayeen number 1 quraankii way iska daayeen number 2 salaadii way iska daayeen number 3 hurdo tiro badan waa lagu arkay ilaa heer hooyooyinkii walwal badan qabsaday ee isdhaheen caruurtaadii wanaagsanayeen cunugaadii wanaagsanaa cunugtaadii wanaagsanaa miyay darooga baratay maxaa intee wax ka qaldan yihiin waa la soo saari waa meel wax ka qaldan yihiin ala soo cunugii oo ku socday 100% wanaag oo hal mar gaari kala fireena amal soo kala firay oo soo fariistay qisadii in badan markaa dabagal oo caruurtii dabagalay waxa soo kor baxday dhibaatadaas oo dhan waxa number 1 daroogana ma baran waxa ma baranin telefoon la siiyay iyadoo looga farxad oo quraanka dhamayso wax fiican wanaaga sameeyso ka faraxsiyaan isdhahay laakiin dhibaato u keentay telefoonkii ay waxyaabo xun ka fiirsadeen kadib way fiirsadeen dan meesha ku baabeen kadib waa caruur yar maskaxdooda waxa soo gashay ay ka sheegeen waxay dhaheen maadaama dambigan saan u weyn aan galnay salaad ma nala aqbalayo wanaag kalena lama aqbalayo maxaan u sameeynaa marka dambigeena la hore u sii wadan marka walaalayaal waxa hooyooyin Soomaaliya hadaan weel Soomaaliya hadaan waxa u baahanahay control in sameeyna technology oo la socono caruurteen aaba badan jiro oo la dhahay parent control jiro waxyaabo badan jiro in caruurteen waxay fiirsanayaan hal ula socono laakiin inayna dareemin waa ina waxyaabo aan ku xiri karno oo maxaa la jira telefoonkooda ikoona ogaani oo la soconaa luuq kasta ay galaan hadii laakiin cunuga mobile u soo iibin iPad u soo iibin farahan aan ka qaadno oo hadoo sidii xaafadada cunuga soo ku jooga ka halaaw taasna wareer waa marka insha Allah dignin telefoonada iyo iPad-da iyo technology-ga ka warqabo hala saaran inaan la share garaayo waa dignin ku socota technology-ga caruurta technology-ga hal ilaaliyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.